بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولا ليال waxaan bilaabi doonaa darsi ku saabsan bisha barakeysan ee Ramadaanta maadaama waqti yar ka harsan yahay waxaan jeclaystay inaynu habeenba daqiiqado yar oo kooban aynu soo qaadano mowduuc ka mid ah mowduucyada la xiriira bisha barakeysan. waxaan ka hadli doonaa fadlu siyaam soonka fadliga uu leeyahay. axaadiis badan ayaa ka hadashay rasuulka calayhi salaatu wasalaam laga soo arooriyey. waxaa ka mid ah xadiiska Abu Hurayra uu soo warinayo ilaahay raala ka noqdee ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaal, rasuulku wuxuu yidhi ilaahay baa yidhi casa wajal. marka xadiidku waa xadiis qudsi. ilaahay wuxuu yihi kullu camali bni aadam lahu ila siyaam fainahu lii wa ana ajzi bih. ilaahay wuxuu leeyahay xadiis qudsigan camal kastoo bani aadamku sameeyo isagaa leh. taa macnaheedu waxa weeye camalkaas ayaa loogu abaalgudayaa siduu yahay. in kaana sayi-an fajazaauhu, yacni haddii uu xumaan wiyo camalkaasi wax lamida loogu abaalgudaya, hadday wanaagtina wanaag baa loogu abaalgudaya. laakiin ilaahay wuxuu yihi ilaa siyaam, soomka marka laga reebo. waayo buu ilaahay leeyahy soomka anigaa iska leh, anuun baana abaalgudkiisa bixin kara. marka xadiiskan ilaahay subxaana watacaala wuxuu kafaalo qaatay abaalmarinta soomka. ilaahay unbaa og abaalmarintiisa, macnaha waa abaalmarin aan la soo koobi karin, aan la sawiran karin, oo ilaahay uu qariyay si qarsoodiya maalinta yowm alqiyaamaha uu siin doono qofka sooman. ilaahay baana kafaalo qaatay. waxyaabaha walaalayaal fadliga kamid a soomka qofku uu helayo abaalmarintu helaya waxaa kamid a rasuulku wuxuu yihi sida uu soo arooriyay cabdallah binu camar ana nabiya calayhi salaatu wasalaam qaala asiyaamu walqur'aanu yashfacaani lilcabdi yowma alqiyaama. yaquulu siyaamu ay rab manactuhu طacaam washahwaat binnahaari fashaficnii fiih. ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. رواه أحمد بسند صحيح. رسولك عليه الصلاة والسلام حديث كنا صومك يا قرآنك قفك ويشفع قادا ما أنت يوم القيامة، وقفك الصفي عن وقتد القرآن كان كعمل فلا برت معنيه سواء أخرية كعباديستا صوم كان سيدا كله soon saxiixa. soonku wuxuu odhanayaa maanta yowma qiyaamaha ilaahayow waxaan u diiday addoonkan cuntadii iyo cabitaankii iyo shahwaadkiisii maalintii oo dhan, marka aniga dartay maanta ku saamax oo ugu dambi dhaaf. qur-aankuna wuxuu odhanayaa ilaahayow addoonkan waxaan u diiday hurdadii habeenka, macnaha habeen oo dhan anuu i akhriyi jiray, habeen oo dhan anuu igu dikriyi jiray oo qur-aanku akhriyi jiray, wardi buu lahaa habeen oo dhan uu sameeyo, marka hurdadaba habeenkii wax yar buu seexan jiray. fashaficnii fiih, aniga dartay maanta ergey u noqonaya, aniga dartay ku saamax oo gafafkiisii ka dhaaf. fayashfacaani, saasay ugu shafaaco qaadayaan qofka. marka fadliga intaa leg bay leeyihin soonka iyo qur-aanku. bishana waa bishii qur-aanka. walaalayaal axaadiistu way badan yihiin ka hadlaysa fadliga bisha barakeysan ama si guud soonka. waxaa ka mid ah axaadiista Sahl binu Sacad wuxuu yihi nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ina liljannati baaban yuqaalu lahu arrayaan yuqaalu yowma alqiyaamati ayna asaa'imuun. wuxuu leeyahay jannadu waxay leedahay albaab, albaabka magaciisa waxaa la yidhaha arrayaan. waxaa ka gelaya uun dadka sooman. markuu galo ka ugu dambeeyey, qofka ugu dambeeyey, markaas ayaa la xidhaya albaabkaas, markaasa qad laga siinaya. markaa taasna waxay kamid lahay fadliga weyn uu leeyahay soonku. soonku haddaba walaalayaal waa qeybo. soonku guud ahaan wuxuu qeybsamaa faral iyo sunna. soon farala iyo soon sunna. soonka faralka wuxuu qeybsamaa 3. ka koowaad waa soonka bisha barakeysan.
bisha rabadaan. ka labaad waa soonka kafaaraadka, kafaara gudka, qofka kafaaro lagu yeesho, sida dee qofka gabadhiisa ama xaaskiisa ku idhaahda anta ka dahri ummi oo kale, mithla dahri ummi, hooyaday oo kale adigata, qofka sida xaaskiisa ku idhaahdo kale. 2 bilood israacsan ayaa lagu leeyahay inuu soomo. soomu nadri ka saddexaad waa soonka nadarka, qofku inuu nadar galo. tusaale inaad tidhaahdo ilaahay nadar waxaan ugu galay haddii ilaahay xanuunkaa iga dulqaado inaan soomo bil dhan aan ilaahay u soomo. markaad bogsato waajib bay kuga tahay inaad bishii soonto, ila nadar baad ku gashay. haddaba bisha barakaysan ayaynu ka hadlaynaa, waa qeybtaa koowaad. labadan qeyboode kale meel kale lagaga hadlaa oo kamida fiqiga, laakiin hadda mowduucan iyo darsigan waxaan ugu talagalay inaan ka hadlo oo uu ku koobnaado bisha barakaysan. soomka bisha barakaysan de waa waajib, kitaab iyo sunnaba hadday noqoto. qur-aankuna uu cadeeyey, sunnada rasuulkuna way ku raacday. ilaahay qur-aanku wuxuuhi yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun. markaa soonku gaarkuma ahun ummadda nebi maxamed ee ummadihii hore dhanna waajib buu ku ahaa, siduu ilaahay ayadan ku sheegay. xikmadda soonkuna ilaahay wuxuu ihi waa si aad ilaahay uga cabsataan. alla ka cabsiguna waa inaad ilaahay amarkiisa la timaado, ilaahay wuxuu kaa reebana aada ka fogaato. rasuulku wuxu uhi xadiis saxiixa, bunya alislaamu calaa 5, islaamnimada waxaa lagu taagay 5 tiir. shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa ana maxamedan rasuulullah, ta koowaad waa shahaadada. wa iqaamu salaa, salaada in la oogo. wa iitaau zakaa, sakada in la bixiyo oo tiirka saddexaad. wa siyaamu ramadaan, tiirka afraad waa bisha barakaysan la soomo. xaju lbeyt, iyo xajka oo ah tiirka 5aad. ummaddu dhammaantood waxay isku raaceen bisha barakaysan in la soomo inay waajib tahay, arkaanta islaamkana wuu ka mid yahay. waxaana la faral yeelay maalin isniina oo bisha shacbaana sanadkii 2 ee hijiriyada ayaa la faral yeelay. markaa bisha barakaysan fadli badan bay leedahay. markii hore waxaan kasoo hadlnay fadliga uu leeyahay si guud soonku, laakiin bisha barakaysana si gaara axaadiis badan baa waxay tilmaamtay tabaaxday fadligay leedahay bisha barakaysan la soomo. axaadiista waxaa kamid a rasuulku inuu cadeeyo dhowr xadiis oo kala dariiqoogu kala duwan yihiin, in albaabada naarta la xidho, tuqlaqu abwaab annaar wa tuftaxu abwaab aljanna ayuu rasuulku yidhi. albaabada jannada waa la fura, albaabada naartana waa la xidhaa. bay macnaheedu tahay camalka wanaagsan aad sameyso ilaahay wuu kaa aqbalayaa, xumaantana waa lagaa cafinayaa bishan hadaad ka toobad keento. shayaadiinta waa la katiinadayaa buu yihi rasuulka caleyhi salaatu wasalaam. ilaahay wuxuu yihi, rasuulku wuxuu yihi malag malaa'igtiisa kamida baa wuxuu ku dhawaaqaa yaa baaqiya alkhayri abshir wa yaa baaqiya shari aqsir xataa yanqadi ramadaan. ka khayrka rabow khayrka usoo jeeso, ka sharka rabowna war sharka ka gaabso. saasuu malkaas ku dhawaaqa ilaa inta rabadaantu ka baxayso. macnaha waa digniin loo digayo basharka iyo bani aadamka. bisha barakaysan in la soomaa dee sa aynu sheegnay waa waajib faral ah. qofku waa inuu ka tago oo uu soomi waayo wax iska cunana khatarteeday leedahay. rasuulkuna wuu ka digay caleyhi salaatu wasalaam in badan axaadiistiisa. wuxuu ihi rasuulku sida abu hureyra kasoo wariyey, man aftara min ramadaana fi gayri ruksatin rakhasaha allahu lahu lam yanqadi canhu siyaamu dahri kullahu wa in saamahu. rasuulku wuxuu ihi qofka wax iska cuna maalin kamida ramadaan isagoo ruksad haysan iyo cudurdaar midna, hadduu xitaa sanadkao dhan soomo buu leeyahay, ama waqtigoo dhan hadduu soomo noloshiisa inta ka hadha kama gudayso. markaa khatarteeday leedahay taasi. soonku waxaan kusoo gabagabeynayaa darsiga caawa. soonku 2 tiir buu leeyahay, 2 rukni. 2daa tiir haddii la waayo soonka ramadaantu ma ansaxay. tiirka koowaad waxa weeye waa inuu qofku da iska ilaaliyo wax kastoo soonka kaa jabinaya, laga soo bilaabo waagu markuu dilaaco ilaa inta qoraxdu ka dhacayso. alaana baashiruuhuna wabtaguu maa kataba allahu lakum wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayt alabyadu min alkhayt alaswadi min alfajr huma atimu siyaama ila alleyl. saasuu ilahay yihi
marka ilaah wuxuu sheegay aayadda qur-aanka marka la afuro kabacdi qoraxdu dhacdo inaad baashaali kartaan oo xaaskiina la baashaali kartaan ood cuni kartaan ood cabi kartaan ilaa inta waagu ka dilaacayo oo liid ka cad uu soo baxayo oo habeenku meesha ka baxayo waa waagu markuu dilaaco kabacdi ilaah wuxuu leeyahay ilaa inta habeenka kale kasoo gelaya qoraxdu dhacayso soonka afxidhnaada oo dhammaystira soonka. khaydkaa cad iyo khaydkaa madow ilaa aayadda qur-aanka ku sheegay waa waaga, waa iftiinka cad iyo madowga markay isbedelaan oo maalintu soo gasho iftiinka caddaado oo jihada bariga uu cadaanku kasoo baxo, jihada bariga ay cadaan noqoto, habeenkiina meesha ka baxo ayaa la yidhaahdaa waagii baa dilaacay. markaa qofka waxaa waajib ku ah inuu cuntadii iyo cabitaanka joojiyo uu soonkii dhamaystiro. rukniga labaad ee waajibka ah waxa weeye waa niyada. qofku haddaanu niyeysan inuu soomo bisha barakaysan uu iska afxidhnaado un biduuni niyad la-aan laa yasixu soomuhu, soomkiisu ma ansaxayo. wamaa umiruu ilaa liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiin. ilaah wuxuu leeyahy cibaadadu waxay ku xidhan tahay al-ikhlaas, waa inaad ilaahu badax tirto niyada ku qabato. inama alacmaalu binniyaat wa inamaa likulli imri'in maa nawaa. qof kasta waxa waajibo camal markuu sameynayo waa inuu ilaahay darti u qabanayo u niyeysanayo. marka haddii aad niyeysato habeenka ugu horeeya rabadaan inaad bishan barakeysan soomi doonto, haddii ilaahay dee caafimaad kugu gaarsiiyo way kaa gudaysaa oo qasab maaha inaad habeen walba niyadda xidhato. haddaad habeen walba aada xidhato niyadda ku qabato inaad soomayso beri toolana way ka fiican tahay, fa axsan. marka waa arrin fiican. marka niyadu waa tiirka labaad soonka. marka dee niyaddana qalbiga lagu qabtaa. qofkii dee suxuurta ujeedadiisuna tahay inuu soomo, suxuurta ilaahay inuu ugu dhawaado soonka uu niyeysta macnaheedu wey. niyadu way u xidhanta ilaahay dartii. qofka dee niyeysta inuu berri toola afxidhnaado, cunto iyo cabitaan iska joojiyo, dembiga iska ilaaliyo, sidaa ku soomo wuu niyeystay. marka niyadiisu way u xidhantay. niyaduna si aynu sheegnay haddii qofku habeen walba niyada xidho rabadaanta way fiicanta, xilliga suxuurta u xidho niyadiisa, niyada ku qabto. haddii uu macnaha habeenka xilligaa doontona waad niyeysan kartaa. mar haddii qoraxdu dhacdo kabacdi niyadda waad qabsan kartaa, waad xidhan kartaa. marka labadaa tiir ayuu soomku leeyahay. habeen walba cashar yaroo kooban oo ku saabsan bisha barakeysan ayaynu soo tabin doonaa insha allahu tacaala. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.